أمريكان وحركة كذا أنا بوقت أخريو ما في فيزيكس نوادي كذا معلمين تسكولة ما في فيزيكس كدقة أيانا ما وعدي كذا ما في فيزيكس ما بوقت أوتها هاي معناها كلية نقطة آخر سكول قف أنا وآخرين مركولا وحنا قرها يا محد رمز دكتور أنا وحبا أقول ندير قف بنداوينها سيل محد رمز ده ترى إنسان أشوفه السمينار بعد كصوب حي وحرس كصوب سنة وحنا آخرنا يبوس رأسه دكت أقول له أسبوعك بعد أسكديني ساعة أما بيلك بعد أسكديني ساعة لكن هدي هدف كاجو يعني أنا أقول كجارتي وحخرس خسر هذا waxaan guda galay hadii ilaahay seminaarkan ku saabsanaa muhiimadda uu leeyahay waxa akhriska horta cidna kama qarsoona in maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda ilaahay ma saddex qodob ayaa ku saabsan doona hadii ilaahay waxaan ilaahay ka rajaynayaa in hadii ilaahay uusan seminaarkan ka dhigin mid lagu qasaaro mid inta la dhageysto xaafadaha la iska aado jidka lagu soo hilmaamo inuu ilaahay ka dhigin qodobka koowaad waxa weeye saddex qodob bas isku badi mayno seminaarada waxyaabo jira waxa kamid ah in war tiro badan inta la sheego hadhow wixii la keeni waayo waxba seminaarka hadhow qofka soo waxa la yiraahdaa 6 bil ka bacdi ama bil ka bacdi la yiraahdaa war seminaarkaas muxuu ku saabsanaa qofkii wax ka sheego saddex qodob bas ayaan du ilaahay ma ka hadli doona ayaga ayaan faahfaahin doonaa bas qodobkooda waxa weeye dhibaatooyinka laga dhaxlo wax akhris la'aanta in bulshadu ay noqoto bulsho aan waxba akhrin ama shakhsigu noqdo shakhsi aan waxba akhrin dhibaatooyin nooc ah ayaa laga dhaxlaa waa qodobkooda du ilaahay ko waxa laga dhaxlaa jaahilnimo ayaa laga dhaxlaa bal ka waran qofka maanta intuu magaalada soo aado derbigan meesha ku qoran tahay meeshan waa isbitaal Heblaayo ama ay ku qoran tahay maktabada guud ee Galkacyo ku qoran tahay hotel Hebel qofka aan akhrisan karin ka war qortooda kiina hadda waa naga maqan yahay waa arki lahayn sawir dadka aan wax akhrin tusaale fiican oo soo diyaariyo ah dad kartoomo maskaxda ugu jiraan kartoomo qofkii waska looweynaya uu nool yahay kartoon madaxa ugu jira inuu asoo wax arko isku maleeya laakiin waxa ma arko kala miirtay ee macnaysay markii qarsoona waa misbaaxi kaahiisu maanka barasha la aad laakiin waxa wali la mid ah heerka aan ka joogna akhriska waxay la mid tahay xaqiiqda markii laga abaaro qof leh warqad iyo akhriyo kale ayaan ka nahay sababtoo waa maxay waxaan isku maleynaa inaan wax baranay dad macallimiin aan tacliimiin oo heer sare gaaray sidaas daraadeed ma rabna inaan wax akhrino wacyi la'aan ayaa kamid ah waxaad maqasheen qof hebel wuxuu gaaray guul qof hebelna waa guul darays waxaad maqasheen dawlad Heblaayo waa wadan hebel waa guulayst wadan hebel waa guul darays inta badan marka fiiris bulshooyinka xataa wadankeena marka tusaale loo soo qaato oo wadan kale la aadin wacyiga bulshadu waa kala gedisan yahay hadba bulshadu waxay la wacyi noqonaysaa ra'yi noqonaysaa inta ay wax akhriso sida ay wax u akhriyaan waaya waxaan galeynaa faa'iidooyinka uu leeyahay akhriso runtii waa ogtahay cid walba faa'iidooyinka akhrisku leeyahay meeshaan lagu soo koobi karin laakiin waxaan isku dayayaa bal qaarka ugu muhiimsan inaanu wax ka taabto number 1 faa'iidada laga helo dhisidda garaadka akhriska number 1 faa'iidada laga helo waxa weeye in qofka garaadkiisa uu dhismo waxaan ognahay in qofka markii uu isceliyo deesason ahayn in maalintii markuu yiraahdo 2 jeer u baahan yahay inuu wax cuno ama 3 jeer marka laga yaabo inay ka sii badsadaan sidaas si la mid ah maskaxdeena waxay u baahan tahay waxay quwada u baahan tahay jirku wuxuu sameeyaa exercise loo sameeyaa sidaas si la mid ah maskaxdeena waxay u baahan tahay exercise u baahan hamogaan taariikhda mid kamid ah hadii uu awood u yeesho in asagu si iskiis isku waraabiyo ileen geedo waxa ogna markii roob da'o biyaha ay kaydsadaan kadib ku koraan qorraxda waxa saasoo
haddii geed ka mid a geedahaas uu awood u yeesho in asagu iswaraabiyo oo biyo dheeraada asagu uu helo geedkaas iyo geedaha kale farqi noocaas maxaa isleen maxaa qiyaas karnaa inuu geedkaas uu ka duwanaanayo geedaha kale oo ka weyn yahay oo ka qurxoon yahay wax kasta ilaa biyo koraya biyo iska haysta qofku wax akhriya ayaa la mid ah darajada laga gaaro akhriska waxaa ka mid ah qofku inuu noqdo qoraa qof qoraa oo suu wax u akhrinayo qof xog badan oo fiican ta kaysada uu noqdo ay bulshaduna ka faa'iido heer asaga intuu dhergo bulshaduna ka faa'iido u gaaro waxaan arkaa runtii dad badan oo isnaqaano isgaranayno oo runtii marka qaar igu yiraahda waxaan rabnaa buug qoro runtii markaan ereygaas aan ka maqlay aad aan uga naxay wax kale maaha inaan macnaha ii sheeg aan xasid ku ahay maaha inaan qoraanimadii aan diidan yahay dad bulshada wax la soo kordhiyo maaha laakiin shakhsiyadoodii ayagaan fahansanahay jadwalkooda say yihiin dad fahansanahay qof aan wax akhrin markuu yiraahdo waxbaan qorahaya maxaa dareemaysa dhaqtar aan waxba aqoon hadduu yiraahdo qof baan daaweynaya see leed maxaa dareemaysa dabcan waa xanuun waa dareemay waxaas le waa aad baa wax maanaysa waxa la mid ah qaybta saddexaad oo ah sidee loo noqdo akhrista ilaa faa'iidadiisa waa garanay sidee ku noqon karaa akhrista sidee ku noqon karaa su'aashu su'aal muhiim soo ma markaan rabnaa inaan noqono qof akhrista number 1 waxaan ka rabaa waa inaan hadaf leenahay hadafka iyo ujeedada aad wax akhrinaysid maxay tahay daatiraad saan u joogo seminar baa hadda ka soo baxay wax akhris ku saabsanaa waxbaan akhrinayaa buu soo dhigtay ogow loo isbuuc ka bacdi iska deynaysaa ama bil ka bacdi iska deynaysaa marka aragtid inaad wax akhriska caado ka dhigatid ku bilow buug yar ku bilow هموغان تاريخ دا معني ليهي عجيس دون أبانت مركا ميال دحمر سيناي لكن دا كوبيلا كورن بوق 60 بيج أما 70 بيج دوبة 60 بيج markaan akhriska bilaabay jaamacadda semesterka afraad marsiinay waxaan soo gatay buug yar oo ku qoran tahay sida loo maareeyo waqtiga oo qoray Dr. Ibrahim Al-Fiqi waxyaabihi aan shakhsiyan aan ka dhaxlo waxa kamid ah in buugta la yareeyo akhriska aan lagu dhimin wax yar oo kooban oo faa'iido leh buugtiisa hadda aragtiin midka u badan waa 100 page ama leena buug yar ayadan kooban oo aad iyo aad muhiim u ah meesha wax uga haraysa buugta yarka waxa kamid ah buuga caawiyaha ardayga inaan maqasheen ay kala maaqa buuga caawiyaha ardayga waa buug uu qoray qoraaga barnaamijka soo jeedinaya hortaagan macallin uu qoray ku saabsan ardayda waa 67 page sabiya aan 60 dhowrkaas page oo kooban u doortan waxay ahayd number 1 waxa akhrin ugu talagalay waxay arday dugsiga dhigat ardaygaasna in lagu soo dawax akhriska oo buuga sirka intuu akhriyo yiraahdo wax akhris ila wax saalan waay mid kale isoo qabo waxa kale gaar ah marka inaad noqotid qof wax akhriya jadwalkaaga maalinlaha inaad wax akhris ku dartid jadwalkaaga maalinlaha inaad wax akhris ku dartid maalintii waxaan ognahay inaan 5 waqti aan tukano saacad Soomaa inaan shaqooyinka nolosheena muhiimka u aadno hadii qof iskuul wax baranayo iskuul aadayo haduu jaamacad aadayo haduu meel ka shaqeynayo jadwal maalinlaha adeegsana oo nolosheena waxyaabo muhiimka aan hilmaamin sida hurdada kamid ah habeenkii aan seexano maalintii qofka duu jaanis yeelay inuu seexdo sidoo kale ku